بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملك استواد نقد داونيسان هل كان نواجهنا الكيني عكت يدنيدا CID برو تي في ورركا ورئيسية يوحنا سو جوجي qaybtan iyada waxaan uga hadlaynaa guud ahaanba xaaladda cakiran ee gobolka bariga dhexe iyo arrinka kale ku soo biiray ee ah badda cas iyo xuutiyiinta iyo Sacuudiga marka laga bilaabo 28 February sanadka 2026 waxa weerar wadajir qaaday Ameerikaanka iyo Israa'iil kaasoo ka dhan ah oo loola jeeday in lagu wiiqo awoodda iyo guud ahaanba waddankaasi Iran arrinkaasi markii ay bilaabayeen waxa loo maleynayay dad badan oo dunida ka tirsanaya dalalka adduunkuba in arrintan ay sahlanaan doonto oo markaas ay dhici kartoba in si fudud looga adkaado waddanka Iran laakiin arrintaasi ma aanay dhicin iyadoo haddaba la marayo gabagabada bisha July taasoo ka dhigan 5 bilood ku dhan tan iyo intii weerarka wadajirka Israa'iil iyo Ameerikaanku ay qaadeen waxay keentay dhibaato xoog leh oo ah mid dunida laga dareemay guud ahaan dhinaca dhaqaalaha iyo amniga intaba gobolka gacanka oo ay ku yaalaan wadamo dhowr ah oo barwaaqada adduunka qiyaastii inta ugu badan kaydku uu yaalo oo ah dalalka gacanka ee lixda ah ayaa culays xoog leh oo ku yimid marka laga yimaado weerarka Iran lagu qaaday Ameerikaanka iyo Israa'iil iyo Ameerikaanku markay weerareen gobolada iyo guud ahaanba degmooyinka iyo waliba meelaha dhaqaalaha iyo waliba arrimo badan ay u arkayeen meelaha militariga ee kaydku u yaalo Iran ayaa Iran waxa ay bilowday kalkeeda inay marka la weeraraba taa bedelkeeda aarsasho ay samayso oo ay weerar ku qaado danaha Ameerikaanka ee ka yaala guud ahaanba dalalka gacanka ee lixda ah arrintaasi waxa ay keentay culays xoog leh inuu ku yimaado wadamada gacanka sida dalka Kuwait, dalka Qatar, dalka Bahrain, dalka Istaga Imaaraadka Carabta, Saldanada Oman, boqortooyada Saudi Arabia. Ameerikaanka ciidamo aad u fara badan ayaa ka jooga wadamadaasi, qalab fara badan ayaa u yaala, qalabka raadarada ayaa u yaala, qalabka difaac cirka, diyaaradaha caadiga ah ee dagaalka noocii ugu dambeeyay, diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo diyaaradaha kale ee daroonada iyo waliba noocii ugu dambeeyay MQ-9. guud ahaanba qalabka yeelay wadamada gacanka Ameerikaanku iska lahaa muddada dheer iyo saldhigyada uu ku lahaa midaan la gaarin oo aan lagu laalaaban ma jirin iyadoo balaayiin iminka ay tahay oo July lagu jiro qiyaastii khasaaraha xoog leh Ameerikaanka ka soo gaaray guud ahaanba wadamada gacanka hantidii iyo qalabkii military ee uu yeelay waxaa la isku dayay wada hadal in la sameeyo iyo safgarad iyadoo shirar kala duwan lagu qabtay magaalooyinka Islamabad iyo Doha taasoo ujeedku uu ahaa dawladda Pakistan oo dadaal xoog leh u gashay sidii Ameerikaanka iyo waliba Iran ay u dhex dhigi lahayd nabad heshiis safgarada ayaa jiray oo markii lagu dhirindhiriyay dhinaca Doha iyo dhinaca Islamabad kadib la isugu yimid magaalo ku taala waddankaasi Switzerland oo bishii June Ameerikaanka iyo waliba Iran wufuudi ka socotay isku afgarteen heshiiska safgaradka oo ah in la joojiyo dagaalka kadibna wada hadal dheer la sii wado arrintaasi oo loo balansanaa xoogaa shaqaysay kadib culays ayaa yimid Ameerikaanka ayaa bilaabay weeraro inuu ku qaado guud ahaanba dhinaca Iran qaybo ka tirsan iyo inuu markaasi ka hortago maraakiibta imanaysa ama gelaysa dekadaha waddankaasi Iran taasi waxay keentay culaysku inuu sii bato oo iyada lafteeda Iran ay dib u bilowdo weeraradii danaha Ameerikaanka ee ku yeela guud ahaanba gacanka maaha oo kaliya saldhigyada Ameerikaanka in dhibtu ay gaarayso ee wadamada gacanka laftooda dhib ayaa gaaraya haddii ay tahay dekadahooda iyo garoomadooda diyuuradaha kuwooda militariga iyo kuwa rayidka intaba iyadoo haddaba ay arrintu sidaasi tahay oo la islahaa dib ayaa wada hadalkii loo bilaabayaa oo wufuud kala duwan ay ka timid dhinaca Islamabad oo ay tageen Tehran iyo waliba Ameerikaanka oo si toos ah loogu gudbinaya wax walba Iran lagala kulmo Iranna loo soo gudbinaya wax walba Ameerikaanka lagala kulmo intuba ma aanay shaqaynin taasina waxa ay keentay aaqiritaankii in dib la isugu laabtay koob iyo 13 habeen oo isku xigta ayaa Ameerikaanku waxa uu weeraray waddankaasi Iran qaybo kamid ah dhinaca dhaqaalaha dhinaca bundooyinka dhinaca iskuulada isbitaalada iyo goobo badan taasoo sharciyan marka dagaal uu dhex maro laba wadan aan la ogolayn goobaha rayidka oo ay mamnuuc tahay in la weeraro Iran dib ayay u bilowday iyaduna weeraradii aarsashada ee wadamada gacanka guud ahaan badanihii Ameerikaanka 11 bisha aanu ku jirno ee July ilaa laba maalmood intii ka horeysay waa 13 habeen oo isku xigtay ayaa Ameerikaanku weeraray Iran ay weerartay danaha guud ahaanba Ameerikaanka iyadoo haddaba xaaladdu ay sidaa u cakiran tahay oo gacankii Hormuz maraakiibtii aanay maraynin si socod iyo soo socod Iran ay tiri aniga ayaa maamulaya maraakiibta amriya lacag ka qaadanaya Mareykankuna uu yiri aniga ayaa amriya 20% lacag baan ka qaadaya waxaana lacagta ku bixinaya kharashka militariga ilaalinaya ayaa culayska keentay markan dambe ee qora ku taag
iyadoo xaaladda Iran iyo weliba Ameerikaanku ay cakiran tahay dhaqaalihii adduunka ee dhinaca tamartu uu cirka isku shareeray shidaalkii uu qaaliyoobay maalmihii iminka ugu dambeeyay $100 ka badan barmiilkii uu gaaray dunida ayaa waxaa soo korortay arrinta kale ee dhinaca Xuutiyiinta iyo badda cas. nimankan Xuutiyiintu waa niman gacan ka hela iyo garab xagga militariga iyo dhaqaalaha dowladda Iran. dagaal xoog leh ayaa dhex maray iyaga iyo isbahaysatada Sacuudiga uu hogaamiyo marka laga bilaabo 2015 dalka Yemen. taasi waxa ay keentay dib xoog leh inuu dhaco, hantiyo inay burburto, in la barakaco, dhul badan inuu baaba'o, kadibna heshiis ayaa la gaaray 2022. xaaladda oo sidaas ah ayaa Xuutiyiintu waxay bilaabeen in ay digniin siiyaan dowladda boqortooyada Saudi Arabia u sheegaan wixii ka dambeeya hadda waa 3 maalmood ka hor maraakiibtoodu inaanay ka soo bixi karin geli karin dhibiyaha badda cas. 2 markab ayaa la weeraray oo ah maraakiibta dhinaca shidaalka ee boqortooyada Saudi Arabia maalmo ka hor. Sacuudiguna isaga laftiisu weerar ayuu bilaabay Xuutiyiinta uu ku qaaday dhulka ay joogaan ee Yemen sida magaalada dekedda ee Xudayda iyo meel u dhow oo jasiirada. arrintaasi waxa ay keentay Xuutiyiintu 24 saac ugu dambeeyay taasoo ka dhigan sabtida habeenimada ilaa axadda oo ah waqtigan ugu dambeeyay inay weerar ay ku qaadeen magaalooyin 2 ah oo ah goobaha shidaalka laga daabulo ee dhinaca Jazaan iyo Yumbac oo ku yaala boqortooyada Saudi Arabia oo la arkay olol xoog leh oo ka baxaya oo Xuutiyiintu ay qaadeen weerarkaasi. taasi oo iyada lafteeda loo arko inay sii ballaaranayso arrinta dhinaca badda cas. haddii awal gacanka Hormuz oo 20% shidaalka adduunku uu isaga gooshi jiray ay xirantay 28 February, iminkana badda cas maraakiibta la weerarayo oo la gubayo ayaa hay'adaha dhinaca badda ee maraakiibtu waxa ay u digayaan guud ahaanba maraakiibta ka timaada meelo kala duwan ee dhinaca badda cas maraysa oo loo sheegayo inay dhici karto culays xoog leh inuu yimaado ee laga fogaado. taasi waxa ay keentay dib xoog leh oo sii siyaaday oo dhaqaale oo dhinaca gacanka marinkiisa Hormuzna uu muhiim ahaa, dhinaca badda casna ay muhiim ahayd marka laga hadlayo dhinaca Aasiya fog iyo Aasiya caadiga ah iyo marka laga hadlayo dhinaca soo aadista Yurub iyo soo marista dhinaca bariga dhexe iyo maraakiibta oo markii hore dib uu ka dhacay markii Xuutiyiinta inay aadeen dhinaca Atlantiga oo marka wareegiina uu dheeraaday qarash fara badanina uu baxay. awal bay ahayd iyadoo arrinta Iran iyo Mareykanku ay taagneed 28 February weerarkii markii Israa'iil iyo Ameerikaanku wadajirka Iran ay ugu qaadeen. maalmo ka hor Xuutiyiintu markay Sacuudiga ay weerareen iyagana la weerarayo ilaa hadda. arrin kale ayaa dhacday galinkii shalay ee hore oo maxay tahay dowladda Ukraine ayaa waxa ay weerartay marka la fiiriyo markab marayay dhinaca badda la yiraahdo Caspian Sea, taasoo macnaheedu ay ka dhigan tahay markabka inay iska lahayd waa markab dhinaca xamuulka ee dowladda Iran. shakhsi kamid ah shaqaalihii ayaa ku dhintay, shakhsina waa uu ku dhaawacmay. Iran cambaareed xoog leh ay u soo jeedisay dowladda Ukraine oo ay u aragto inay qalqal ay abuurayso dhinaca nabadgelyada ah. dowladda Iran wasaaraddeeda arrimaha dibadda markiiba waxay u yeertay ninkii arrimo fuliyaha ka ahaa safaaradda Ukraine ee ku taala magaalada Tehran si loogu sheego gardarrada bareerka ee Iran ay tabanayso in lagu la kacay oo markabkeedii maraya dhinaca Caspian-ka badda lagu magacaabo la weeraray. waxaa loo maleeyaa markabkaasi inuu yahay mid isagu taageero u waday dhinaca waddankaasi Iran iyadoo la tuhmo inta badan dowladda waddanka Russia inay si aad u taageerto xagga militariga iyo xagga dhaqaalahaba dowladda Iran. su'aal ayaa la isweydiiyay maxaa dhici karta, maxaa keeni kara dowladda ka dhisaalan magaalada Kiev ee dalka Ukraine inay weerarto markab Iran leedahay Caspian Sea joogay. waxaa taaqi looga dhigayaa daroonada la yaab kale ee Ameerikaanka, daroonada la yaab kale ee Russia ay ku weeraraysay 4 sano iyo ka badan dowladda Ukraine ee dadka laayay, dhulka burburiyay, waa kuwo kala duwan oo lagu sameeyo dalkaasi Iran. waxay taasi macnaheedu u yahay halka Soomaalidu ay tiraahdo Ukraine gambar gaaban ayay ugu fadhisay waddankaasi Iran, fursad ay markabkooda ku heshay, laakiin Iran taa beddelkeeda waxay sheegaysaa cawaaqib xumo inay iman karto. iminka wararka ugu dambeeyay ee ku saabsan gulufka colaadeeda gacanku waxa uu sheegayaa iyadoo ay taagneed arrinta Mareykanka iyo waddankaasi Iran, iyadoo ay taagneed arrinta Xuutiyiinta iyo Sacuudiga, waxaa soo korortay arrinta kale ee Ukraine iyo weliba Iran. taa macnaheedu waxay tahay inay sii fidayso dhibaatada xoogga leh ee bariga dhexe ee Israa'iil iyo Ameerikaanku ay bilaabeen. arrinkani arrin la sahlan kara maaha marka la fiiriyo xaaladdu sida ay tahay. Iran maalmo ka hor wasaaraddeeda arrimaha dibadda iyo gaashaandhiggu labaduba waxay shaaca ka qaadeen dhibka iminka socda inaanu ku ekaan doonin gobolka gacanka ee uu sii fidi doono. taas marka waxay fasiraysaa arrinta marka la fiiriyo Xuutiyiinta ee badda cas, arrinta marka la fiiriyo dhinaca Ukraine ee weerartay markabka badda Caspian Sea ee ay iska lahayd dowladda Iran inay keeni karto wadamo kale iminka aan muuqani inay lug ku lahaa karaan ayna soo geli karaan arrinta sii cakirantay ee iminka.
Ameerikaanku waxa uu sheegay 24 saac ugu dambeeyay markab inay weerareen iyo markab kale labadaba taasoo qiil uga dhigeen inay ahaayeen kuwa holinaya inay u soo dhuntaan xeebaha iyo dekedaha waddankaasi Iran. Arrinta Hormuz ma sahlana xaalkeedu ma qumana dib xoog leh ayaa adduunka ka haysta dhaqaalaha shidaalkii iyo gaaskii kor ay u kaceen maraakiib socotaana ma jirto dhinaca badda cas iyo Red Sea xaalkeedu ma qumana waa la isu jawaabay dhinaca Xuutiyiinta iyo dhinaca boqortooyada Saudi Arabia iminkana baddan Caspian Sea lagu magacaabo markabka la weeraray waa markabka ay iska leedahay dawladda waddankaasi Iran taasi waxay keeni kartaa xaalado badan inay jiraan waliba arrin kale ayaa jirta oo Iran ay dhibsatay laakiin aanay warbaahinta ku sheegin oo laakiin warbaahin kale ay sheegtay niman khubaro ah oo iyagu ka tirsan waddankaasi Ukraine ayaa waxa loo diray wadamada gacanka arrinka waxaa codsaday dawladda Ameerikaanka ama Mareykanka oo maxay yiraahdeen Ukraine adinka ayaa yaqaana daroonada ka yimaada dhinaca waddankaasi Iran ay sameysay Russia idinku weerartay kaalaya adinkuna wadamada gacanka tababara si ay isaga ilaaliyaan oo isaga qabtaan daroonada lagu farsameeyay dalkaasi Iran taasi waxaa loo arkayay dadka doordarasa arrimaha gaashaandhigu inaanay waxba u tari karin shir degdeg ah iyo tababar degdeg ah oo qolo ka timid Ukraine ay markaas siiyaan wadamada gacanka wadamadii iminka ugu dambeeyay Iran ay sida aadka u weerartay hantida Ameerikaanka 48 saac la soo dhaafay marka laga reebo shalay iyo maanta waa wadamada Kuwait iyo Jordan halkaas oo dib xoog la geystay gantaaladii dhinaca difaaca cirka gantaalada Patriotka loo yaqaano kuwa THAAD loo yaqaano helikobtarada diyuuradaha ah MQ-9 daroonada ah oo dhammaanba u fadhiya Ameerikaanka Kuwait iyo dalkaasi Jordan dib xoog leh ayaa loo geystay laakiin mar walba Ameerikaanku ma sheegaan dhibka xoog leh ee gaaray laakiin waa balaayiin waxaa maalmo ka hor hadlay xogayaha Ameerikaanka u qaabilsan arrimaha gaashaandhigga Pete Hegseth oo yiri ilaa iyo 8 bilyan lacag gaaraysa ayaa iminka u muuqata dagaalku inuu ku kiciyo ama lagu qasiray lagu qaaday waddankaasi Iran oo dawladda Ameerikaanku aysan qorshahaasi hore u galin ayna arrintu ay sii badanayso haddaba haddii aanay dhicin in caqligu uu shaqeeyo haddii aanay dhicin inay Ameerika ay dib u fakarto haddii aanay dhicin Iran inay dib u fakarto haddaan wada hadal dhab la isugu iman arrinkaasi ma qumana labada dhinacna Iran iyo Ameerikaanku waxay sheegeen inay dhinteen oo meesha ka baxeen isafgaradkii bishii hore laakiin iminka waxay qorsheynayaan haddayba suurtagal tahay wada hadal kale in dib loo bilaabo waxaana ka shaqeynaya dalka Pakistan iyo saldanada Oman lama oga xaaladda dhinaca gacanka ee 28 February si socotay maalinta ka dambaysa dib xoog leh oo dhaqaale geysatay hantiya ay burburtay dad badan ay dhinteen dad badanna looga digayay iminka inay tagaan gacanka oo xaaladdu ay sii ballaaran karto lama oga halka ay saldhigi doonto allaha awood leh uunba og laakiin wixii ku soo kordha gulufka colaadeed ee dhinaca Hormuz dhinaca badda cas iyo dhinaca Caspian Sea intaba 24 saac kastaba waanu idinla socodsiinaynaa channelkeena Cagta iyo Dunida CID Pro TV ee wararka wareysiyada iyo waxaan u soo joogay محمد أحمد حاجي محمد يا بعد وررك CID Pro TV وحيد اللي يهين تانيو برنامج كلو كلا مذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.